السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو وناكسن دقيستيال داوديا ميول بان نقلا سعوتان وحان دقيسن إيسان على دا يسترين كا تي في دليرو استوديو سمغالة مستدام كسا دوادا برنامج كيت طبعات كايو نساشدا برنامج كمان توحا كان نقلا سعوسين ياري محمد داود فرسمدا قرانيد وعيسى عبد الله علي إيجي عيسى يسدو قلي الأستاذ عبد القادر علي وفيصلير لو يقانو اي حق كاميرا سنلو كلا ربروغيا برامجي وطبعات كي نساشدا برنامج كوحان كسو قادتونا قدبوين دورا ويقانا ينفقو لجرنا يا كوغل لوليو حلوغو دبالدقي وطماء أفر بدن أيضو آخر فلقي دلك الصوماليا حرمنا كقادتي كوميستي سكية sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed maxay ka faa'iideen aalada Facebook oo ayadu intooda badan markaa aragtidba madaxa iskuulada jira kombiyuutarada iyo qodobooyin kala door kaalimihiisa suugaanta ayaan meesha ka marnayna balse kaalimaha suugaanta waxay u badnaan doonaan xagga weliba wadaniga iyo weliba waxa ugu horeey doonta heestii Farxiya Axmed Farxiya Fiska loo yaqaano calanka hadda calanka waa loo wada heestii Farxiya Fiski markan inaga hantiya Have
waa taageerta wada inaga dhageysanaysa inta naga daawanaysa wili waxaan nagala socotaan TV dhalinyaro studiisa magaalada Amsterdam intaas waxaan kaga gudbaynaa codkii macna Farxiye Ahmed Fiski heestii calanka markana barnaamijkii toddobaadkii iyo nasashada ayaan ku guda jirnay qaybtii xagga wili qodobooyinka ayaan markana aan guda galeynaa waxa maanta studio nagu soo booqday Ismaaciil Cabdulqaadir Ismaaciil Yare oo asigu kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed markaan ku nool wadanka Netherlands Ismaaciil marka hore ku soo dhawow studio-ha waxaan kaloo aan jeclahay in marka la xigtana aad noogu waranto waxyaabaha aad kala kulanto aalada Facebook-ga intii aad isticmaalaysay iyo aad u maadsantahay waa dhawahay magacayga waa Ismaaciil Cabdulqaadir waxaan ku noolaa magaalada Amsterdam dhinaceeda Nooradka run ahaantii waxaan ka faa'iiday waxyaabo aad u fara badan waxa kamid ah waxaan ka faa'iiday markii ugu horeysay markii aan isticmaali jiray internet qaybtiisa MSN-ka iyo waxa booran aad u weyn laakiin hadda waxa u maleysaa inaan ka korkicinba dhinaca Facebook marka fiirso sababtoo ah waxa igu jiro gabdho aad iyo aad u fara badan haddana marka ila caweeyo oo waqti badan ila qaato marka saas darteed aan uga jeclaystay sidii markii hore intii ay markaada hore aadan Facebook iyo waxyaabahaas aadan isticmaalin iyo haatan oo Facebook aad isticmaashid keeba uu badan yahay asxaabtaada dadka intooda badan waxay aaminsan yihiin asxaab fara badan ayaa laga kasbadaa teeda kale waxaad noo raacaysaa dhibka aad kala kulantay run ahaantii waxa badan xilligaana badan isticmaalkeena sababtoo ah waxa u maleysaa inaan 3 bilood ama 5 bilood ba aan furin dhinaca MSN-ka sababtoo ah waxa aad iyo aad ula yaabay oo igu dhibadna kiligii ayaan ahay oo iska aragtay dhalinyarada kiligeed nool aha markii aan inta mataqaana shaax inta dabka saartay oo markaa ugu gubtay marka aad iyo aad ula yaabanaa marka waxyaabahaas oo kale farxad awgeed anoo gabar la sheekaysanayo aan inaan dareeminba inaan dabka wax ii saaran yihiin waa tahay faa'iidada iyo maaragtay qasaarahaaga baad noo sheegtay okay ugu dambeyntii yaa kaloo aad jeceshahay inaad halkan ka salaanto maanta barnaamijka toddobaadka iyo nasashada maadaama adigu ka qayb galaya asxaabteeda waxaan jeclahay inaan salaamo mahad saaxiibkay oo ku magac dheer Deekow Shiine oo ku magac dheer saaxiibkay Cabdullaahi Abuukar oo dhaho Shiine Ali oo ku magac dheer Ali Boodaaye iyo waliba akhyaar kale aad u jeclahay magacyadooda aan soo kaabi karin iyo saaxiibteeda aan jeclahay waliba Sahra waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasina Usmaan oo ahaa nagu soo booqday studio-ha TV dhalinyaro oo ku leeyahay magaalada Amsterdam oo ka qayb galay barnaamijka toddobaadka iyo nasashada waa tahay kaasina waxa uu ahaa Ismaaciil oo nagu warramiyay waxyaabaha faa'iidada iyo dhibaatooyinka uu kala kulmay aalada Facebook-ga anagoo barnaamijkii toddobaadka iyo nasashada ayaan ku sii guda jirnaa markana wareysi kale ayaan guda gali doonaa wiil dhalinyaro ayaa isna saddexaantiisa nagu soo booqday studio-ha balse intaan u guda galin kaalimaha suugaanta markana kooxda Khayladaan iyo weliba heestiirada waxaan ka sugaynaa barnaamijka heesooyinka hore waxaan ugu soo qaadan jirnay heesaha xagga jacaylka balse maadaama wiilkan uu yahay kooda Luulyo ay ku jirto maantana ay tahay bisha 3 Luulyo waxaan u dabaaldegaynaa kaalimaha xagga iyo heesaha wadaniga markana kooxda Khayladaan iyo weliba heestoodii